maalin quraanka haddaad aqriyi weydo taasiirkeeda waa dareemaysaa hal maalin hadday ku soo marto quraanka aqriyi weydo weliba dee dadka yani quraanka calaaqada la arrintaa aad u sii dareemay haddaad maalin aqriyi weydo 10 maalin haddaad aqriyi weydana waaba dee waxa weeyaan waa khatar weyn bil haddaad aqriyi weydana kama sii daran marka in sha allahu tacaala bal aynu ku dadaalno in aan qur'aanka wehel ka dhigano oon aqrino على الأقل حتى waxaa laga yaabaa inaad tiraahid ma akhriyi kara ama dadka qaarkii waxaa laga yaabaa inaysan akhriya ilaahay baa taysiiriye waa dhegaysanaysa ajhizadan iyo ashridadan iyo alaabtan iyo waxan iyo kombiyuutaraadkan iyo telefonaadkan iyo waxan oo dhan waxa weeye xujo weyn baa hadda dadka ku ogan oo berigii hore laga yaabo xujo weyn aan saaran dadka ma dhihi kartid waxay baraan waaye ma oran kartid jihaaska iska shido ama telefoonkaaga shido musxafka la bax la soco dhagayso juskaaga maalintii halkaas sidaa ku soco saa haddaad yeesho in badan dhagahaaga qur-aanka ku dhacaan waxaan idiin sheegayaa anigu yaraantaydii sheekh aadam ibn xaggaasaan arkaayo waa habtii sheekhu ka mid ahay anuu yar ayaa waalidkii allah yarxamuhu waalidna sheekh cali suufi oo xalaqada igu qasbi jiray inaan fadhiisto inaan aad u yaraa waxaan ku garanayaa berigaas de hadda oday baan iska noqday laakiin berigaa inaan aad u yaraa waxaan ku garanayaa xalaqada oon ka mid ahay oo dadka fadhiistaan ka mid ahay ayaa marmarka qaarkii salaada oo lagu jiro horey i fadhiisan jiray war halkaa fadhiiso oran jiray salaadoo dadka ku jiraan halkaa waxaan ka dareemaya inaan 7 jir ka yaraa leanna haddaan 7 sano gaadhay ima dhaheen safka hortiisa fadhiiso salaadoo lagu jira salaadoo gal i odhan lahaa sidii caadadiisa ahayd da'daydu intayd ma garanay laakiin halkaasaan ka qiyaas qaatay yacni waxaan xusuustaa salaada oo la oogay oo la galay oo la aqimay inuu ilaa dadka hortiisa fadhiiso inaan gadaal ku ciyaaray waxbuu ka baqaya mugta war xaggaa fadhiiso iyadoo xaalkaygu ay sidaa tahay ayaa haddana xalaqadaas bayna almaqribi waalcishaa iyo tan bacda alfajriga aana ka maqnaan karin waa juz baa la aqriyaa maqribka iyo cishaha dhexdooda fajarka ka bacdina juz baa la aqriyaa 15 beri mar baa qur-aanka sidaa lagu dhammeeyaa laakiin juzka la aqrinayo ayaa min khilaalihi tajwiidka laga saxayaa dalabadaas iyo ardadaa oo dadka qaarkii qiraa'aadka ay ku baranayaan oo waxay ahayd xalaqa mutakaamila bay ahayd marka yaraantaydaas ayaan fadhiisan jiray oo yacni anoon xataa musxafka si fiican uga kicin karay qur-aanka ayaan iska fadhihi jiray mana la ii ogolayn inaan ka maqnaado fasaxna ma lahayn jumcana ma lahayn ciid xataa ma lahayn xataa yowm alciid lama joojin jirin walaa ciid walaa fasax walaa ma jirin waa ku qasbanayn inaan fadhiisano halkaa dabadeed waxaan arkay berigii dambe oo 10 jir iyo aan gaadhay ayaan damcay inaan qur-aankii oo dugsi waa jiray aan tegaynay oo iska ma garanaysaa laakiin markii aan damcay inaan qur-aanka u soo jeedsado oon xifdiyo waxaan arkay inaan iska xifdisanahayba waan xusuustaa oo markii aan damcay inaan qur-aanka aan maalin kasta juz baan yaan diyaarin jiray uu iska diyaarsanaa waa isu keenkeenay oon isku yarhagaajiyey waa min karati samaac ku noqnoqodkii ma aragtay aan fasaxa lahayn aan ciidna lahayn aan jumca lahayn waxba lahayn een ku qasbanaa in meel hebliya halkaa la geeyay halkaa lagu soo ciyaaray waxaas aysan jirin waxay keentay bifadli illaahi inaan juz intaan diyaariyay habeenkii aan uga baxo alwaalidka allah yarxamu aan uga baxo taasay iska ahayd iyo khilaal shahr qur-aanka sidaasaan ku xifdiyeyba taas weeye hadda marka aan lagu leeyahay had iyo goor qur-aanka dhagayso oo xalaqaadka had iyo goor hala sameeyo oo dhagahaagu markay qur-aanka ay ku bataan oo carabkaagu uu ku bato walow yaadan xifdininba haddaad doonto akhriskaaga iyo carabkaagu hadduu ku bato dhegaysigaagu uu ku bato marka dambe adoo waxaad arkaysaa xifdiyi baad arkaysaa